maqlida cod kale waxaa kaa caawin kara maqalka dhagaha oo kuu badqaba waxayna kuu suurtagelin karaan inaad ka falceliso dhawaqa waxaa hareerahaada ka dhacaya ama wax kaa fog iyo shakhsi kula hadlayaba lixda lixaad ayay ka mid yihiin dhagaha oo qofka aadanaha uu leeyahay wax walba tallaabo shaqo inaad qaado ayay ku gadaaman tahay noloshaada waa haddii aad rabto mustaqbalkaada inuu bidhaamo tinta ayaa ugu baxday waxaan rabaa inaan baalbeeri ado oo tintaas ka jarto xaggee aad is leedahay wuu aadaya maxaan doontaa oo tintuu ka jarnaya ila soco cabdifataax cabdi xaaji qoorta waa timajare ma kari karo inuu hadlo maqalkiisu waa eber hadalka ka soo baxayo afkiisa wax micnaha uma heli kartid wuxuu adeegsadaa tilmaamo fareed uu dadka uu kula hadlo dhalinyarada xaafadda ayuu u jiri jiray markiisa hore waxay ku ammaani jireen qaabka jarmadiisa iyagoona kula talin jiray meel inuu furto waxayna kula garab galeen qayb ka mid ah dhaqaalaha baalbeeriga ugu furan sanca qofka soo gaaro nooca jarmo uu rabo siduu u fahmaa qofka markuu soo fariisto normal maaragta cadaan maaragta sacad oo wembley man kugu jiraa qaab noocaan kugu jiraa oo qofka waan isfahanaa inta badan qofka waxaan fiiriyaa aqrinta afkiisa aan ka aqriyaa waxa uu rabo saasaan ku isku fahanaa wuxuu dhahay waxyaabo yar oo meelahan ka aruuriyay wixii maalintaas ah oo aan meelaha ka helo iyo wax oga dhalinyaro xaafadda ay u bilaabeen ayaa ilaa hadda shaqada aan ku soo wadaa yacni wax caawinaad oo gooni oo qofaan ka helay ma jirto wuxuu dhahay waxay ugu dhiirigeliyay dhalinyarada xaafadda degan xaafadana ugu jiri jiray ayaa markay dhaheen niyow waa timajare waa fiican yahay baalbeeri sameyso ayaa intaan yartaa habaystay markaas dadkaas ku soo tilmaamaan waxay dhahaan cabdifataax qoorta waa fiican u tag saasaa lagu yimaadaa kastamarku yeesha jibriil nuur oo ka jaranaya timaha baalbeerigan wuxuu ii sheegay meel kale inuusan ka jaran isla markaana uu ku qancay jarmadiisa dowlka macnaha macaamiishiisa ahayd mar walbana jarmada ishaan rabo ay ugu jiraa aada u faraxsanahay kaagi imaan degmada shibis la deganahay isku xaafadaan ahni waa isfahanay muddo dheera ka jirana ilaa iyo 2 sano ku dhawaad waxaan bilaabay 2018 mujaahidka wuxuu duwan yahay jirdaankiisa ka wanaagsan teeda kalena dabeecad wanaagsan uu leeyahay sidaa wax ugu sheegto ayuu kugu jarayaa mar walbana waa nin wanaagsan nolosha waa sida bad ciribka aad ka joogto oo aad doonaysid cirib kale inaad gaarto aad iyo aad ayaan u tacajabay qaabka ugu jaray waan ku qancay wuxuu dalbaday in laga saacido dhinacyo uu ka tilmaamay xaruntan haddaba cabdifataax yuu ku maareeyaa shaqadan wuxuu dhahay waxaan leeyahay xaas waxaa ii joogta 2 wiil iyo 1 gabar waxaan deganahay xaafadda ayaga u shaqeeyaa oo wixii aan shaqeeyo raashinkooda iyo daawadooda iyo waxbarashadooda saasaan ku maareeyaa wuxuu dhahay waxaan hadda meesha maraayadaha iyo safiitooyinka waa wax hore oo niman dhalinyaro xaafadda ay sameeyeen oo haddana ebreyga noqdeen haddii wax laga saacido waxaa kaalaalaya qalabka oo timajaraha iyo farsamada meesha laga saacido wax badan kama fahmi karin laakiin waxaa noo kala turjumayay muxudiin yuusuf kaahiye oo iga caawiyey xaruntiisa ganacsi waxaa yimaada asxaab badan oo naafo ka ah maqalka oo saaxiibo ay yihiin oo ay wada ciyaaraan kubadda cagta